Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan mubaarak mar kale. ramadaantiisa ilaahay caafimaad ha inagu gaarsiiyo, acmaashana allah inaga aqbalo. Maanta waxaan soo qaadanaynaa fiideo oo ah su-aalaha la isweydiiyo marka imtixaanka la marayo B1-ska oo ah brief schreiben. Marka lagu leeyahay qor brief, 3 brief oo tusaale ah oo insha Allah aad ka faa'iideysan doontiin ood ku dayan doontiin ayaan soo qaatay insha Allah. briefkan ugu horeeya wuxuu ku saabsan yahay qasaalad kaa xumaata ama waschmaschinekii dharka lagu maydhayay. In ihrer Wohnung haben Sie seit einiger Zeit Probleme mit der Waschmaschine. Gurigaaga waxa aad in muddo ah dib ku qabtay qasaalada dharka maydhaysa. Der Techniker soll die Waschmaschine reparieren lassen. Ninka farsamayaqaanka waa in uu hagaajiyaa maashinka. Leider können Sie Ihren Techniker telefonisch nicht erreichen. Nasiib daro ninka farsamayaqaanka kuma heli kartid teleefon. Deshalb schreiben Sie einen Brief. Sidaa daraadeed waa inaad u qortaa brief ama waraaqad. Intaas waxay ahayd wixii aad u sheeganaysay ninka farsamayaqaanka ah. briefka aad qori doontana waa inuu u kala baxaa 3 qaybood. 1. Grund des Schreibens, sababta aad u qoraysid briefka. Problem wie lange schon, mushkiladan maashinka kaa xumaaday in intee leeg buu ku haystay. Termin für Reparatur, ballanta lagugu sameynayo ama goorta lagu heli karayo. Wie Sie erreichbar sind, iyo sida lagu helayo ma teleefonka mise guriga ayaad joogtaa. Waa kan briefkii ama waraaqadii aan u qoraynay ninka farsamayaqaanka ah. Waxaana aad ku bilaabaysaa hadalkaaga. Sehr geehrter Herr Mauer, Mudane Mauer, ich schreibe Ihnen, weil ich in meiner Wohnung ein Problem mit der Waschmaschine habe. Waxa aan kugu soo qorayaa risaaladan waayo aqalkayga waxaan ku haystaa dhib amaba waschmaschineka dharka maydha iyaan dhib ku haystaa. Ich habe Sie angerufen, waan kula soo hadlay, aber leider konnte ich Sie nicht erreichen. Nasiib daro kuma aan helin. Es ist sehr dringend, waa arrin aad muhiim u ah. Denn seit 3 Tagen ist die Waschmaschine kaputt. In gaadhaysa 3 cisho ayaabay iga xun tahay ama iga kharaabsan tahay qasaaladu. Wann können Sie die Waschmaschine reparieren oder einen Techniker schicken? Goorma ayaad ii hagaajin kartaa qasaalada ama aad ii soo diri nin farsamayaqaan ah. Mein Mann oder meine Frau ist jeden Nachmittag zu Hause. Haddii aad wiil tahood aad u qoraysid briefka waxaad odhan meine Frau. Haddii aad gabar tahay ood qoraysid briefka waxaad odhan mein Mann ist jeden Nachmittag zu Hause. Maalin kasta gelinka dambe iyuu joogaa ama ay joogtaa. Sie können einfach anrufen und kommen. La soo hadal aqalka oo iska imo ama oder Sie rufen mich an ama aniga ila soo hadal. Meine Handynummer ist, lambarkaygu waxaa weeji, waad ku qoraysaa markaas lambarka aad haysid. Mit freundlichen Grüßen waa ugu dambeysiin oo ah salaan saaxiibtinimo. Horteedana waxaad ku qori magacaaga si aad u arkaysiinba. Hadda briefkan waa isagii oo dhan.
waxaanan u adeegsanay saddexdii su-aalood eed qabtay amaba ka qor lagaa idhi briefka ee ahaa sababta iyo inta cisho ay ku haysato dhibta ama aad waxay u baahan tahay, sida lagugu heli karayo. briefkan labaad wuxuu yahay ihre guten Freunde, saaxiibadaada kuugu dhow ama kuugu fiican, Amina und Mustafa, wollen heiraten und haben ihnen eine Einladung zur Hochzeit geschickt. waxay sameysanayaan aroos ama isguursanayaan, waxayna kuu soo direen waraaqada Einladungka ah amaba ee kugu dalbanayeen arooska amaba casuumada. markaas waa inaad u jawaabtaa antworten Sie den beiden auf die Einladung. labadan qof ay isguursanaysaba waa inaad uga jawaabtaa Einladungkaas ama waraaqadaas casuumada. waxaanad adeegsan sidaan kusoo aragnay briefkii hore 3 nuqdadood oo ah in ama 4 Grund des Schreibens, sababta aad u qoraysid, ob sie kommen können, in aad u tegi karaysid, Geschenk, hadiyad wixii aad qaadaysay, iyo Wegbeschreibung oo ah tilmaanta meesha uu aroosku ka dhacayo. Liebe Amina und Mustafa, gacalyayaal Amina iyo Mustafa, ich danke für die nette Einladung. waa niiga mahad celinayaa casuumaada wanaagsan aad ii samayseen. Ich möchte gerne zur Hochzeit kommen, aad iyo aad baa u rabaa inaan imaado arooska. Ich kenne die Stadt, waan garanayaa magaalada, aber diese Adresse nicht, laakiin adreeskan ma garanayo. Könnt ihr mir bitte den Weg beschreiben? ma ii tilmaami kartiin adreeska uu ka dhacaya aroosku? Und ich möchte für euch ein Geschenk mitbringen, waxaan rabaa in aan hadiyad idin keeno. Wünscht ihr euch was? ma wax baad rabtiin ama aad niyada ku haysatiin in aan idin keeno? Viele Grüße, salaan badan, aan nimco. waxaanad ugu dambaysiini magacaaga sidaad u arkaysiin briefka. briefkan ugu dambeeya sidaad u arkaysiin waxaa weeji gabadh aragtay iidhe shaqo lagu dalbanayo, saas daraadeed waxay rabtaa in ay u qorto brief. Sie haben eine Anzeige für eine Stelle als Verkäuferin gelesen. waxa aad ka akhrisatay iidhadii in la rabo qof meel ka shaqeeya ama dukaan. Sie sind daran interessiert, wuu ku cajabiyey oo waad rabtaa. Deshalb schreiben Sie an den Arbeitgeber. saas daraadeed waa inaad u qortaa qofkii bixinayay shaqada brief. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. waxa aad ku bilowdaa qoraalkaaga Anrede oo ah qofka aad la hadlaysid iyo salaan aad ugu dambaysiinaysid. 3 nuqdadoodna waa lagaaga baahan yahay in aad qoraalkaaga ku xustid. ta ugu horeysa wer Sie sind, cidda aad tahay, Deutsch Kenntnis, luqadaadu sida ay tahay, Berufserfahrung, iyo in aad u leedahay shaqadan wax khibrad ah ood mar hore kasoo shaqaysay. waa kan briefkii ama risaaladii sidan bay u dhacaysaa. waxaad ku bilaabi Sehr geehrte Damen und Herren, marwooyin iyo mudanayaal, waxaan ka akhristay joornaalka iidhadiinii. Ich interessiere mich sehr für die Stelle, aad iyo aad ayay ii cajabisay oon u rabaa. Ich möchte mich für diese Stelle bewerben, waxaan rabaa in aan
waraaqad idiin qorto amaba aan warqad shaqo ah aan inii soo gudbiyo. My name is Rahma Ile. Magacaygu waa Rahma Ile. Ich bin 31 Jahre alt. Waxaan ahay 31 jir und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. 2 sano ku dhawaadna waxaan ku noolahay Jarmalka. Ich habe im letzten Jahr einen Integrationskurs besucht. Waxa aan sanadkii hore tegay amaba aan kasoo baxay Integrationskurs luqadda Jarmalka. Jetzt spreche ich schon gut Deutsch. Imika si fiican ayaan ugu hadlaa Jarmalka. In Somalia habe ich als Verkäuferin bei einer Firma gearbeitet. Soomaaliya waxa aan kasoo shaqeeyay shirkad ayaan wax u iibin jiray. Ich schicke Ihnen meinen Lebenslauf und meine Zeugnis zu. Waxaan idiin soo diri Lebenslauf waxaa la yidhahdaa wixii aad markaad noloshaada aad soo qabatay, shaqo ha noqoto, iskool aad dhigatay ha noqoto, yacni wixii aad u leedahay faaqun amaba khibrad, iyo kaarneegaaga ama waraaqadii shahaadadaada. Ich würde mich über eine positive Antwort sehr freuen. Waxaan aad ugu farxi lahaa jawaab aqbalitaan ah inaad ii soo dirtiin oo positive ah. Mit freundlichen Grüßen. Salaam badan, Rahma Ile. Markastaba waxaad ugu dambaysiin mit freundlichen Grüßen iyo magacaaga. Imtixaanka B1-iska dadka galaya waxa loo keenayo briefka sidan oo kale ayaabay u dhacayaan amaba saddexdan tusaaleen hadda soo qaadanay oo kale weeji. waxaa lagu keenay wixii lagaa rabay inaad qortid iyo kelmadaha aad adeegsan lahayd. markaas wixii yaraa ee Jarmaleed soo barbaratay iyaad isku geygeyni brief yar oo fudud oo si fiicanna aad u qorto iyaa kaaga soo bixi. insha Allah dadka maraya B1-iska waxaa u rajeynayaa viel erfolg guul in ay ku guuleystaan imtixaanka.